Asalaamu calaykum daawade soo dhawow ma isweydiisay ama ma jeclaatay inaad ogaato lacagta YouTube ka sameeyo Dirsel Cabdi bishii ama maalinkii ama toddobaadkii ama sanadkiiba mid ay rabtaa ahaatee. Talaabada koowaad ee qaadi doona ayaa waxay tahay inaan YouTube ka galno markaana Dirsel Cabdi aan linkiga YouTube kiisa soo koobi garaysano. Inoo soo kacaya baa u qoran la saddex channel leeyahay baan jecelahay runaantii bas channelkiisa ugu weyn waa kana ee 1 milyan u dhow horta linkigiisa waa kan way koobiyeysanayna waynuna koobiyeysanay marka waynu ka baxaynaa oo website-ka lagu fiirinayo ama Google kamida ee inoo sheegaya baynu tagaynaa halkan ayayna markaa Dirsel Cabdi linkigiisa halkan baynu ku baasti gareyn doonaa oo si aynu ogaano lacagta uu sameeyo bishii waa kana markaa search ma ku dhufanayna oo waynu fiirinaynaa sababta waxaynu ogaanaa lacagta uu sameeyo bishii intay leegtahay ama toddobaad waqti rabto aato Dirsel Cabdi lacagta uu sameeyo runaantii waa tana bishii waxa lacagta uu sameeyaa waxay dhantahay 850 ilaa 13,600 dollar sanadkii waxay noqon kartaa 10,200 ilaa iyo 163,000 marka Dirsel Cabdi lacag fara badan buu runaantii ka sameeyaa YouTube-ka isaga iyo dhalinyaro fara badan oo la mid ah marka tan waxay dhiirigelin buuxda noqon doontaa insha Allah dhalinyarada jecel inay YouTube-ka lacag ka sameeyaan kuwaas waxaan leenahay hore u socda inaan fiirina qof horta lacagtu ka sameeyo YouTube-ka ama mushaarka ka soo gala waxaa laga yaabaa inaanay wax fiican baanay ahayn dadka gaarsiiya amisayn balse tan waxay dhiirigelin buuxda u tahay dadka jecel inay YouTube-ka bilaabaan ee inay ku soo biiraan aad iyo aad u xiiseeya inay shaqo ka dhigtaana aabay taladooda tahayba oo anigu ka mid ahay adiguna laga yaabaa inaad ka mid tahay waayahay labadeenaba haddii aanu ka mid nahay walaaladii soo fargaree runaantii ama subscribe-ta haddii aad YouTube-kayga daawanayso aniguna insha Allah wax kasto macluumaada oo kaaga horeeya ama muhiim ku ah waan ku soo gudbin doonaa adiga laftarkaaga haddii aad soo gudbiso waan ku daawan doonaa insha Allah